meerka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xado halkani warfidiinada kula hadlaya waxa markiisii ugu horeysay u daadifeeyay qaar kamid ah warbaahinta gobolka Awdal oo maalmihii ugu dambeysay qoraysay in meerka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xado ka maqan yahay magaalada waxana meer Saleebaan Xasan Xado sheegay sifada sharciga uu ka mari doono warbaahintii qortay wararka beenka abuurka waa sida uu hadalka u dhigay meer Saleebaan Xasan Xado ayaa sidoo kale waxa uu ka waramay socdaalkiisa uga maqnaa magaalada meerka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xado madana gudoomiyaha la socota maalmihii ugu dambeysay warbaahinta qaar kamid ah warbaahinta magaalada Boorama waxay qoraysay in duqi magaalada Boorama uu magaalada ka maqan yahay isla markaana uu talaabay dhinaca Jamhuuriyadda Djibouti xogta iyo wararka wad haysa bal anaga iyo daawadayaasha banala wadaag waxa uu daaranaad safarkaagii aad ku maqnayd aad waa maasantay Imraan horta waxa weey aad waa maasantay horta jaanis waa bay tahay runtii inaan halkan su'aalahan iyo kuwa kale oo jawaabtooda diyaan meel laga raadinaa gareyn bay in la weydiiyo runtii horta maalmahan waan arkay laakiin de wax qof kasta oo bili aadan ah markuu arko oo arkayo qof fiyoobi inaanu qorbay runtii ahayd waxyaabaha noocan la qoray waayo waxaan la yaabay oo xataa aniga laftigaygu aan isiriniyo ma adag waalan mise cadan baa laga heesayaa aniga oo xafiiska fadhiya oo safar ka imi in shir jaraad horteeda lagu qabto oo la yidhi maqay hadda waaban imo safarkayga soo dhameystay waxa la yidhi maqay taade waa lisa loogu jawaabo ma garanayo runtii ta kale markaan ka hadlo qofku de markuu mas'uul yahay safar buu bixi karaa hawlo gaar ahaaneed buu bixi karaa xataa Djibouti buu u baxaydan nobody knows cid alla cid aanu midiyuhu ka arkay Ethiopian tagay runtii hawshaasuna way noo soo dhamaatay de mid shakhsi iyo mid hawl qarana baa loo bixi karaa laakiin waxaan la yaabay ilaa xad waxyaabaha media de waxaasi oran maayo kuwa magaciina wata ee wax ku soo qorqoray ismari dadayna dad caadi yihiin waayo marka ay wuxuu tahay media itigasiyo wuxuu leeyahay nidaam oo hadlo hadduu wax toosinayo wax la khalday hadii uu ka daba tagayo waxa soo dhan waa wax u baahan in dib loo saxo waajibaadkiisana ay tahay runtii ama wax la qabtay sheego ama wax la xumeeyo sheego laakiin waxa jira inuu abuuro horta waa xaraan kaas wariye ma waa wax doon inamadaas de inta ay jeel ka sokeeyaan way yar tahay laakiin waxaan u maleynaa wali qalijibinta wuxuu dhimanta kulli sharciga baa laga mari doona haduu la yiraahdo waana mahadsantiin waana joogaa shaqadana waan waday waana ka soo noqday safarkayga ilaa shalay waan joogay oo magaalada ku sugnaa shaqaduna si fiican u socotaa inta kalena meerka magaalada Boorama ayaa waxa uu ka jawaabay eedo maalnimadii shalay talo warbaahinta uga jeediyay xildhibaan kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Boorama wad garsooma marka horta inaan ka abtibaano ku sii fogaan maaye warka shalay baa la yaabay de kaba filayn ba horta isagoo iga soo baxay inuu hortayda ku qabtay shir jiraay haddana isla yaani waxyaabaha la yaabay kamid tahay wariyaashu anigoo ku jira oo arkaya wariyihii mu oran soo kan meeyarku joogay tii uu shir jiraad ka qabto TV-ga laga sii daayay oo waxyaabaha yaani ay tahay de anshax marin in la sameeyo runtii in fact mana fiicna waana been abuur qofku dambi aw galay isaguna waa soo gahay malaha jeelku ku soo iloobay jeelka waa labuun aniga baadeer mar baa la xiray marka waxaan leeyahay jeelku waa labuun marna waxba ku soo kornay marna waxba ka ridaya waa labadaas marka hadii qofku labada ku sifoobayo isaga isagoo taayidi ka weydiinay laakiin waxaan idin sheegayaa waxaas waxa weeyaan wax qof la iska xidhaa ma jiro hadii la xidhana dambi aw galay uma qofka lagu xidhaa waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Ariel TV Boorama